بسم الله الرحمن الرحيم مركل كلنتي وناكسن مركز طبعا دقني عنكسان waxaynu joognaa xarunta hiddiyo dhaqan oo ay ku kulansan yihiin guud ahaanba ururka dalladda Soomaaliyeed maalmo iyo agagaarkeeda oran karo waxaa kaloo dhinaciga midig fadhiya waa Cabdulqaadir Maxamed Future oo isaguna ah xogeynta marka qaar waxaa imanaya arrin u baahan wadajir iyo maaragtay in iyadoo isku kalsoon yahay wada qabto bal in kooban iiga sheeg sababta keentay in dalladani ay timaado iyadoo hore u jirtay. السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تعطوا صومالو وحن هرم كنا مجال المعلم إلى سديد تمييزي فرقم كذي إلى هي الدوايا قد تمييز لا هذا صومالو مجال مويت كهية مجال أنت بدنا ترانسيت سيتي وحلوية عن مجال مصيمة أي أنت بدنا تستحي لكن وين بحصاد بسيطة كصومالو كل مجال وسوي ربطين ضد بدنا هم تعرفوا بطين وسوي برادوين ودويج هم هذا ضد بدنا نشوف برادجرو Soomaalidu gobolka awal magaalada inta badan ka degi jireen xataa hadda gobolka kale magaalooyin badan oo gobolka ka mid ah deegaan jaaliyadaha iyo ururada macnaha matala bulshada arrimaha bulshada way soo bataan iyagu naftooda waxaan oran karnaa waxyaabahaas oo isbiirsaday yaa horta wuxuu keenay dareen ah in dadku ay dareemaan in loo baahan yahay in kala qoqobsanaanta iyo kala qaybsanaanta in laga yara baxo oo loo baahan yahay in la midoobo marka horta taasaa horta dareenkaas qof walba oo shakhsigu dadku ugu jiray kadibna de waxaa loo baahan yahay cid inay lugta cagta ku dhufato oo tiraahdo waa inaan hadda raacno ururada bulshada magaalada maalmo iyo mataqaana qaar ka tirsan magaalooyin kaleeto oo gobolka Soon ka tirsan yaa madaxdoodiiba isu tegay waxay bilaabeen wadahadal ku saabsan sideen u midoobi karnaa haddii waa fahmi kartaan ururo kale ujeedo u dhisan kala shakhsiyaad ay matalaan dadka kala dabeecada ay yihiin way adag tahay in hal mar la midoobo marka way muddo 2 sano ah yaa mar walba la isbilaansanaya bil kasta mar 2 jeer la kulmayay oo la shirayay oo la tuxan bixinayay maqaanada wixii markay caqabad soo kordhana loo saaray guddiyo arrimaha soo xaliyay aakhirkii waxaa lagu guuleystay bilaad ururada processka bilaabay ama hawshaas bilaabay aakhirkii 16 urur ayaa isku soo haray 16 urur waxay go'aan ku gaareen in aan lagu kala xilmiiska balse la samaysto urur dadka ay u midaysan ururka horta saasuu marka ku dhashay waxaa anigu ururka noqday xubnihii ugu horreeyay ururka soo galo haddana xoghayanka ujeedada marka ururka waxay way hawsha u qabto waxay tahay jaaliyadaha ama ururada halkan ku noqdaan ururka howlkaasa oo isagoo markaas uu ku takhasusay ama uu si taas ah u danaynayo ayuu ka shaqeeyaa laakiin danta guud iyo isku xirka ururada naftigooda iyo bulshada Soomaaliyeed ee gobolkan degan oo dhan in la isku xiro hataa naftigeeda waa loo baahday marka baahida ah in dadka la isku xiro tusaale ahaan Soomaalidu magaalada maalmo degan oo kaliya ma aha Soomaalidu gobolka meel badan ka degan in dadka Soomaalida xataa urur u dhexeeyo isku xiro oo ka wada meel kasta ay joogaan in la helo ayaa horta loo ujeedada tahay marka isku xirkaas ka shaqeynaa waxaa kaloo ka shaqeynaa ururada naftigooda mashruucyada badan inay wada shaqeeyaan bay u baahan yihiin iyadoo inay dalada noqoto meesha loo soo maro wada shaqeynta noocaas oo haddii maanta barnaamijyo uu jiro oo urur qabanayo ururada kale loo baahan yahay in la gaarsiiyo marka anagu inaan noqono jidkii loo sii mar lahaa xiriirka noocaas ama xiriirka mashruucan hadda ay aamina sheegto kaleeto waxaa waagii hore dad kala bilaabay iyadoo markaa wax Soomaaliya oo isu xilqaamay ay jirin halgan dheer baan u galnay marka waa inaan sii galo laakiin halgan dheer kadib waxaan ku guuleysanay inaan ka dhaadhacsiino cidii aas-aastay in ay hadda habboon tahay maadaama aan midaysannahay in mashruuca annaga lagu soo wareejiyo mashruuc waa mashruuc cag badan ku baxayso haddana annagana loogu soo wareejiyey haddana waxaan nasiib u yeelanay dadkii marka ka shaqeynaya marka annaga loo wareegaynay oo doctorasada ugu horeyso inay dad Soomaali ah marka mashruuc fahmi kartaan dalada wax qabadkeeda marka in mashruuc ay dad ajnabiya madax ka ahaayeen oo hogaaminayeen ayagu fikradda lahaayeen in intaan ka daba tagno aan niraano waa mahadsantiin waxaa soo qabateen halkan anaga kala wareegayno hadda waa midaysannahay nagu soo wareejiya marka waa nagu soo wareejiya howlaha kale oo qabanana dee luul baa kulli kaaga warrami doonta arrimaha bulshada aad baad u mahadsantahay oo ku soo laaban doonaa